السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي أمد الصوماليات ميلي تشوغانبا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي عادة نو أهين با وعي قلنتين ديبان ماشي كسي وضنينا أمد الصوماليات ميلي تشوغانبا إلهي إيمانك هكسو عشو إلهي قبيلة أمد الصومالي هو قمعين ربي وقبيلة وقمعين إلهي قبيل كود waa Soomaali adduun kooda Soomaali baa looga yaqaan meeshay tagaan ba Soomaali bay ka yihiin cid magac kale u taqaan male ilaahay qabiil kooda Soomaali way Soomaalinimadooda tus oo ilaahay waa faji oo ilaahay awood adaa iska leh xaqiiqda dadkan tus yaa rabbi meeshan soo ay ku meeraysanayaan oo cid u taqaanay iyo cid ku kala jecel aysan jirin cid ku kala soo ka marsanaysa ayagina isku warjaafeen bisinka uu badhacay ayagina isku warjaafeen oo ay isku baabi'iyeen oo ay ku aakhray adduun baseegeen ilaahu casaawo jalow iimaanka ku soo celi Soomaaliya rabbi oo kaamida meeshan waxa roordahay balsuga ilaahay oo iimaanka ku soo celi ilaahu casaawo jalow umadeena ka leef bay tadba soo wacwacaya marka ciidaha la iga daayay islaan ilaahay marka ilaahay waxaan ka bariyaa umadeena iimaanka inuu ku soo celiyo aqliga saliimka inuu ku soo celiyo qabiilka yihiin inuu baro oo tuso rabbiga qabiilka yihiin ha tuso Soomaali qabiilka yihiin Allah tuso qabiilkoodu waa Soomaali wax kale oo loo yaqaan male wax kale oo loo yaqaan male wax kale oo kala jecel male wax kale oo kala saaraya male marka waxa lagu yaqaan baad tahay waxaan lagu aqoon hadaad ahayn waa waxaan jirin waad ku lumaysaa cidka adduunka meel meesha alla meesha tagto maxaad isku tihiin Soomaali baad isku tihiin isku diin baad tihiin isku af baad tihiin isku dal baad tihiin oo maxay isku haysataan baa lagu dhigi wax alla wax la sheega lama yaqaano ummadaha ilaahay dhulba isku haystaan diimay isku haystaan kalarba isku haystaan wariyo dhibaatada Soomaali haysataa tira badana a'uudu bikalimaatillahi taamaati min sharri ma khalaq ilaahu adaa uga miciin kare uga miciin ilaahu Soomaaliya nasrigaaga uga miciin rabbiyo waxay ilaahu ka shaqaysteen iyo wanaag ma jiraan rabbiyo naxariistaada ballaaran naxariistaada maanta naxariistaada rabbiyo Soomaaliya huwi rabbiyo ilaahu naxariistaada uu miciinada awood iska leh marka waxaad fiirinay waxyaabaha socda waa wax aad cajiib u ah mid kale bal cadaalad xumada meeshan ka socota wiil walaalkeena oo siyaasi ah wadankan ayaa la qabtay shacabka Soomaaliyeed xaqiiqda markaan sheegno inuu lugooyo wadanka ku wada waa u jeednay horena waa u soo lugooyo waa ninkii badda gatay kooxdii badda gadatay buu kamid ahaa kaligiisna ma aha laakiin sababta kaliftay in macnaha duubab u soo xirtaan oo qabiil isugu soo ururaan war qabiilka miyaanu markii hore miyaanu jirin markuu xumaha sameeyay maxay uga qaban waayeen mise qabiilku iyagaan doonayn dawladnimada ma doonayaan miyaha ma cadaysaan markhaati ma isku furaan dhahana ma rabno dawlad ha sheegan qaran ma rabno hawiya ha sheego qaran ma raba ha yiraahdo ma rabno qaran ha yiraahdeen haddii dambiilaha ay maarata isugu soo ururahayaan oo talbeele ay leeyihiin hadda seebay qaran ku helayaan qarannimo see ku helayseen ilmihiina maxaad uga tagayseen idinkoo odayaal yahow tagte awalba odayaasha waxaa loogu bixiyay sanadahan waxay ahaayeen igu shuba aan kuu sheegay hadday odayaal fiican yihiin hadday qarannimo doonayaan hadday ilmahooda u naxayaan dambiilana uma soo shireen umana tolbeelayn isuguma habar wacdeen mana ay soo daysteen inta kalena ku daray oran lahayn wax alla wixii kale raacay maxay kooxda badda gadatay iyo dabal jidid iyo wax alla wixii lugooyo wado dhan iyo kooxda al-shabaabka u shaqayso dhan waxa laba kooxood way meeshan kooxna al-shabaab bay u shaqaysaa kooxna shisheeye imaraad bay u shaqaysaa labada kooxood baa wadanka socon laayay ummadda Soomaaliyeed waliba dhalinyaradu hadii miyay waalayn mise waxa qaldan والله بالله ما يشرح بقى الصعدة أمر إلهي علوس بقى الصعدة سببت عنق الليرة أسقى أركه إنه محنا وبدأ كل ماضي وليش الليرة هاي وحبشيده كل ماضين وما قفوس هذا ركت يلهيه والدولة الآن يضل الآن وكنتي سببت أيتها وضيعشان واتشوجن هذا يحق بنا يندلك تدبي لا تنسى يشوجن هذا يحق بنا يان تدبي لا تنسى يشوجن هذا دلك النبض كان جاي تدبي لا تنسى واتشوجن hadday maaragtay qarannimo sameynayaan 27 sano waa joogeen madaxweyne walbana saasa loogu taagnaa madaxweyne walbana saasa loo lugeynay ra'iisul wasaare kastana saasa loo xukuumad walba saasa loo lugeynay lugta loo jiiday mid Soomaalida cadaabka waxaan ahayn qarcinaya ma jiraan
waxaan qadaa cadaabka ilaahay ahayna wallahi idin qarciya inaysan jirin adduunkana safar iyo lugooyo iyo meel xun inaad taalaan baa dee idman baan u jeedaay waa idman tahay maxaa yeelay gacmihiina iyo lugihiina ku shaqaysanaysaan dambiilihii dambi ma yeelan karo war xabsi waddan kasta haddaad eegto xabsiyadiisu waa buuxa oo yaa ka buuxa waddani waddanka u dhashaa ka buuxa siyaasigoodii baa ka buuxa madaxdoodii baa ka buuxada shacabkoodii baa ka buuxa oo why not sababtoo ah dalka walba cadow buu leeyahy shacabkiisi baa cadownimo iyo danuub ka galaya marka kii danuubta ka galaya haddaan la qabanin oo aan laga xirin oo aan laga dilin hadda nabadgeli mahayo ummaddii intii kale u salfanaya waad u jeedaan dowlad dhisan oo baaxad leh oo cadow iyo nacaba maaragtay meel iska marisay oo nabadgelyo haysatay oo ilmaheeda caafimaad u haysatay friya oo iskuol friya u haysay oo jaamacad friya u haysay yaa lagu jamhadayn lagu baabi'iyey jamhadayn iyo fakar qof jamhada baa lagu baabi'iyey shacabku inay jiran yihiin oo xanuunsan yihiin oo qabyaaladu ay naqata cudur kansar ay ku tahay wax la xisaabtamaya wax weydiinaya arki maysid kii waxaa saa u qaribay baa tunka lagu sitaa kaasaa tunka lagu sitaa qabiil walba kaasaa u hormood u ah oo aan macnaha dhinacna laga mari karo ay ku daba tukanayaan qof dhahaya warniyow maxaa dowla haddaad adigu xataa kii yaraayo aan xataa waqtigaas kusoo barbaarin dowladdii dhexe taariikhdu dib u eegi karaa kuwii kusoo barbaaray buu arki karaa war dowladdii intaa haysatay ilaa dowladda malaa'ig baahana waa dambaabaysaa waa khasab oo dowladda qofka isku soo taaga waa iska celinaysaa waa khasab oo kii maa danuub gala waa la xiri waa khasab oo kii mucaarada waa la xiri waa khasab laakiin mujtamaca iyo qaranka soomaaliya maxay u haysay waxay u haysay wax macnaha aan maanta laga sheekayn karin oo laga shalaayey nabadgelyo buuxday u haysay xorriyad bay u haysay waxbarashay u haysay free ah caafimaad free u haysay dowlad dadkeeda og bay ahayd war waad jabisay maxaad noogu bedeshay intaasoo dhallinyaraaba iyo cidlo ku dhimatay dad baa nagala laayay bilyan baad layseen bilyan wax idin weydiinayana male waxa loo weydiinaya loo indhala'yana waa qabyaalada ogow wax kale maaha qabyaalada baa loo indhala'ya oo waxba laysu weydiinayn ilaahay dadkani may ka baqaan war ilaahay ka cabsada oo nafihiina u baqa oo xishooda ilaahay maba taqaanin kulle haddaad ilaahay taqaanin waa saas ma uba dhaqanteene dambiilaa dusha lagu sitaa war maxaa dambiila dusha ugu sitaan qofka markaan la aqoon siyaasigu markuu cusub yahay wuxuu la soo socda ilaahay baa og waa sax waa loo hamad weyn yahay waa la sugi karaa rajaa laga qabi karaa laakiin qof la tijaabiyey oo already istijaabiyey oo dowlad soo qabtay oo xukuumad soo qabtay oo ka soo shaqeeyey oo inuu macnaha jariim dambi weyn oo jariim ah oo qarannimada soomaaliya jariim ku ah oo hanti dadweyne gaday oo saxiixoodii lahayo waxaa dusha oo maalinka dowladdan dhalatan mooshin bilaabay oo ad u jeedaan waxay ordaan dala shisheeye u shaqaynahaya iyo dad al-shabaab u shaqeeyo oo aan rab al-shabaab meesha inay ka baxda aan rabin labadaa group ma la fahmi waaye ma layska qaban waaye ma layska qaban waaye wixii aan isku dhufta asagaa u dhutiya dhalinyaro idinka unbaa u dhutiye annagu kana daqownay waxaan cun lahayn cunnay idinka idin taalla idinkaa u hoogaya idinkaana hadda u ba'a idinkaa jeelasha u buuxa idinkaa magafo u ba'ay oo u hoogay idinkaa baddu idin laqday intiina hartana halkaasaa laydinku wadaa wallaahi haddiina iska qaban bartaasaa laydinku wadaa meeshii iyada ahayd in laydinku celiyo baa horta loo socdaa loo digi damleeya marka dhalinyarada hawiye oo odayaashaan macnaha dambiilaha soo dayna miyay iska qaban kareen iyagu ilaa qolo kale maba qaban karta iyagaa ka sokeeye ayagaa dadka ugu xigo inuu qabtaa laga rabaa oo dhalinyarada ah oo khaladka saxo laakiin waa ree hebelo maanta anagoo ree hebela saas waa nala ilhaamaysanaya hadday sheekadu noqoto wallaahi idinkoo soo taagan baa laydin ilhaamaysanayaayo laydin dhaansanayaayo amxaar idin dhaansanaya oo kenyaan idin dhaansanaya horena waa idin dhaansadan waa og tahay gabdhihiinay fuulaan oo cid walbay say doonaan ba idin yeelaan meel baa laydinku bahdilaa war inaad dantiina aqoonsataan oo dalkiina aad wax ka noqotaan oo kiinaad macallin ku tihiin oo macno ku leedihiin inay hebel ku tahay ma xorriyadiina iyo qarannimadiina ilaalsataan oo qabsataan waddankiina ood ka ceshataan horarka idinla dhashay ha kula dhasho abbaha haado abtiga haado maxba kaagama jiraan si waxba kuu reebi maaye lacagaha la sheegayo milyamaadka oo mooshinka ku wado barkacyaasha muu ku hagaagsiiyo oo kala ducaysto magaciisana ku hagaagsado ku soo ceshto magaca wixii ka halaabay muu dib u hagaagsado magaciisa dhisto laakiin waxay u jeedaan dadkani waa u jeedaan kooxdani labadan kooxood oo qariban oo qolana al-shabaabka u shaqayso qolana maxay ahayto ay maaragtay imaaraadka iyo carabaha iyo danaha shisheeye u shaqeeyaan waxay arkaan in gobolkooda sii dhacay cidna inaanay beri doonanan way og yihiin
waxay isleeyihin marka intay dowladdu jilicsan tahay yaysan dhaqaaqin intay jilicsan tahay rita intay jilicsan tahay dhalinyarada taasaa lagu socdaa mana fahmaysaan idinka qabiil yaan la idinkugu soo huwanin wal walba waa ku hawiye ku ba'ay oo ku boogayay hawiye meel walba dhalinyaradooda waa ku hogtoo ku baaday South Africa ku hogolo ku ba'een badihii baa laqay xabsiday ka buuxaan meel walba ku jabaan magafa baabah ka dhigay badana war wixii balaaya qaato waxaan u malaynay waxa go'go'aya bahalkii internetka weeye marka aqliga may laayihiin maxaa qaldan see wax yihiin war odayaashan iyo tuugadahan siyaasiyiinta iskaga daba haranimayo oo nimayo iska qabta waxa haddaba hortaagnaa oo qabanayo kole idinkay ay dhalinyaro unbay ahayde nimayo odayaashan iska qabta khaladka ku socda oo macnaha qabiilka wado oo wax ku koray oo ku ilmo dhalay oo ku weynaad oo ku ciraystay nimayo nimanka dan idin ma hayaan sababtoo magnad baa wax ku noqdeen magnad xanjay maskaxdooda waxaasi ku noqotay dhalinyaro idinka maskaxdiinu flexible tahay indhihiina fura waxaan ka waantooba odayaashan iska qabta xildhibaanada mooshinka dowladda loogu bootayna iska qabta maxaaba loogu bootayn xildhibaanka idinkaa doontay qof walba cidi meeshii laga soo doortay odayaasha ha u daba istaagnin idinku la xisaabtama dhalinyarada aqoon-yahanay leedahay dad active ay leedahay iska celiya maanta dadkan dowladdiina baabi'inaya ujeedka ay tahay dowladdu intay cusub tahay lagu qabta intay cusub tahay idinku tilaabsan wax kale meesha ma yaalaan dowladda waad u jeedaan wax qabadkeeda waad aragtaan laysma xaqiro waa kuwa xabsiyada in kaga soo daynaysa wataa dhismaha idiin bilowday wataa shaqa abuurka idiin bilowday wataa maxay idiin taagan wataa kontraadaha idiin soo qaaday meel walba wataa idiin shaqaynaysa xaggee u socotiin marka maxaa rabtiin hoogiya bi miyaa rabtiin gaajadii miyaa rabtiin shaqa la-aantii maa rabtiin tahriibkii maa rabtiin magafa maa rabtiin xaggee u socotiin dhalinyaro indhihiina fura dhalinyaro dadkan iska cesha dhalinyaro sida isu dhaama idinko idin hadhow beritoola anqow isku dhufta asagaa u dhutay idinkoonba idinku soo laabanaysaa marka sidaa isu dhaama maalin qabyaaladu waa wax aada u xun sheeko yar baad idinla wadaagaya maalin dhawayd baan waxaan clip baan dhegaysanaya gabar soomaaliyeed oo magaaladan ila degan oo gabar aan jeclahay weliba ahayd baa waxay ka hadlaysay arrintii waxay ka hadlaysay dabcasar yar wadaadkii meesha somaliland lagu xiray marka waxay leedahay gabar madhaha somaliland cayday oo dee isaaq oo dhan afka marsatay bay aad ula dagaashay real taasoona aad ugu raacsanahay inaan qabiil afka lagu wada dhufan oo aan maaragtay dembiga aysan wada lahayn oo aysan wada xumayn oo aysan wada fiicnayn marka haddii qof wax xumeeyo macnaha qabiil inuu wada xumeeyo maaha koox yar hadday wax hallayso qabiilku ma wada hallayn qabiilku wuxuu isku raaco waa la dhihi karaa hadda maantoo kale hawiyoo dhan wuxuu isugu soo aruursay dambiilo inay korkosha gashtaan waa wax runtii laga yaqiiqsoodo waxay ahayd because dowladdan waa dadka dowlad la-aan baa soo dilatay bilyan baa gardarra maalmalba ku dhimata iyo meel bilaa macno ku dhimata qof macnaha dembiba lagu ogyahayba tuhunba iska dhaafay mid cad soo galay haddana lugooyo wadoo la caddahay oo macnaha maalinkay dowladdu bilaabatay ilaa maanta mooshin iyo digdig iyo carab iyo imaaraad u shaqaynayo loo wada ogyahay oo du wada jeediin oo markhaatimo doontaa dowladdu wax waa ku qaldanaan kartaa procedureka u martay waa laga yaabaa inuu khaldan yahay waa sax waa dhici kartaa apologizena way ka bixin karaan laakiin macnaheedu maaha inuusan dambiilo ahayn macnaheedu maaha inuusan qarandumis ahayn qarandumis koox maafiya wadaba qarandumisa oo imaaraad iyo shisheeye u shaqaynaya weye imaaraadna hadduu janno idin geenayo 7 sano idinkoo indho babaqala airbortkooda markaad tagteen bahdilka laydinku sameeyo waad aragteen fiisahooda ciriiriso idinkugu ahaa waad ogeydeen meel walba idinkaa ku jaban marka kuwii wixii tage odayaashan waa socdaan waqti uma harin siyaasiyiinta waa sii dhacayaan dhalinyaro dantiina aqoodo dalkiina ceshta oo dadkan dalkiina ka ceshta oo idinkay dadkiina yihiin iska celiyo dadkiina odayaashiina iyo siyaasiyiintiina iska celiya dan idinma hayaan iska celiya marka gabadhii baa waxay ka hadlaysay arrintii aan kusoo noqday gabadhii reer Seattle clipkeeda aan dhageysay gabar activist oo aan jeclahay bay ahayd runtii waxay tahay anku Soomaali ma kala jecli waa la gartay waa sax qabiil afka laguma dhufan karo waa sax 100% apologize baan ka bixinaynaa isaaqow gabadha afka in ku dhufatay waa sax waa ummad ilaahay abuurtay waa tolkayo waa ehelkayo waa ummad sheekh leh waa ummad shariif leh waa ummad aaqil leh waa ummad wax garad leh waa ummad aqoon-yahan leh yes afka inaan ku wada dhufano waa wax laga fiican yahay bini aadamku inkastoo markay xanaaqaan ay saba kala harin qof walba caqligiisii uu meel ku simayo qofna uu dee maarta uu kala harayo qofna uusan kala harayn
taasi waa wax aan qof walba oo Soomaaliya aan leeyahay wax markaad tilmaamaysid halaga fiiriyo looma jimac looma ahan sababta airportka dhalinyaro aad u qurux badan baa ku soo dhaweysay khayr Allah siiyo magaalada ay marsiinayeen meel bay la marayeen markii hore la qabsaday mid baa ka soo daayay waxa soo dhan waa isku wada cid marka ma aha inaan sayidka xun kaliya eegno koox yaro maaragtay wadanka xoog ku haysato oo wax halaysay inaan qabiilka mad afka ugu dhufano ama u aflagaadeyno wax xaraam weeye dad badan oo nacayb iyo dhalinyaro badan lagu shibana meesha waa ka buuxaan marka gabadhi waxay tiri Soomaali anigu waa isku kaymid qabyaalad shuqul kuma lihi cuqdad baa daarado qabtiin hadalkii wax yar haday wada waxay tiri aniga ninkaas dabca sara ma taageersani waa sax xaq bay u leedahay inay tiraado ma taageersani laakiin waa ka xumay iyadoo waliba qoslaysa qofka hadaad ka xunta horta qosol looguma jawaababa waa marka koowaad marka labaad waxay hadalkeedu ku dartay bal iyadoo qabyaaladu inay quraan iska soo saarto u baahan tahay baan intusayaa hadalkeedu waxay ku soo saartay aniga ninkaas dabcasan iyo dabacsan wuxuu ahaa ma aqaan hadalkiina iyadoo sax u dhahaysay hadana macnaha ku jeestaynaysa qofkii inay macnaha qofka macnaha waa qof ay lid ku tahay qabyaaladna ma aqaan bay leedahay hadalkiina waxay ku soo xigtay aniga dabcasan iyo siyaad bare ima kala doorna macnaha ma kala jecli oo maxaa siyaad bare 1995 ka dhintay Allah u naxariistay janno firdawsa Allah geeyay kaase oo kuwaan arkahayay maxuu galabsaday oo hadalkiisa u soo qaaday soo cuqdad iyo xanuun iyada ku jira maaha dabcasar waa ninka nool oo halka tagay oo maxay Soomaaliland lagu xiray oo bini'aadanka oo shakhsiga maxay ugu soo qooraysaa oo ay la soo doonatay maxay dabcasar iyo siyaad bare ima kala dooro macnaheedu maxay tahay waa xanuun haya Allah ku caafiyo walaal gabadha Allah noo caafiyo waxyaabo badan oo kale ku fiican tahay laakiin Allah ku caafiyo qabyaalada aad dadka hadda ku dirayso adaa number 1 ay ku haysaa Allah ku caafiyo qalbigaagana Allah kaaga sifeeyo intaasaan ku sheegayaa walaashay marka qabyaaladan jiran quraan hal la iska saaro runta hal la isku qabyaalad qoladii isku soo hartaab inaysa isday waa is ognahay inaysa isjeclayn waa is ognahay maanta hadduu isku soo raacay dambiile inay soo daayaan bari isdayn maayaan shalay baysa isdayn bari baysa isdaynin runta marka la isu sheego haye waxa uu mucaaradayaan dawladdan iyo wiilkan maskiinka oo shaqeynayo dadkan saa fiican sida fiican u shaqeynay waxa loo mucaaraday maxay tahay hawi way soo awood sheeganayso waa u jeedin qabyaaladna always waa noocaas mid uu awood sheeganaya ma khayra loo quuri waayay inuu macnaha hawiye miyuusan ahayn khayr waay hawiye ma khayr soo hawiye ma maxaa loola shaqeyn laayahay sababta loo mucaaraday maxay tahay sababta loogu taagan yahay maagta kabta loogu taagan yahay maxay tahay de xoolo la bililqaystay iyo beero la haysto oo xoolihii dawladda dadweynaha waxaasa la difaacanaya anigu haddaan hadda u jeedo mana shaqeynayso dadkuna indhahooda ha furaan dhalinyarada Soomaaliyeedna waa dargeysaan oo macnaha dadka ka tirsanow waa dargeysaan I promise haddaad nabadda ilaalisataan dalkiina taajir buu noqonayaa maalgelin baa laydin samaynayaa idinkaaba laydin shaqeyn doonaa caar ma sugan kartaan caar intaad bililqa ku dagaalamaysaan adar wax xalaala helaysan oo ballan oo dargeysaan sugta xalaashina sugta xaraan inta ku dhiman lahayd xalaal sugo kana dherg wad helaysaa waxaad lahayn malihid xoog 7 sano hadda ku soo haysatay haddaad waad ka maarmi doontaa ma dhimanaysaa waa garanti inaad xaraan u dhimanaynin inaad adduunyada intaad nooshaana ka tooba keenta wayba ku fiican tahay aakhiradaad u fiican tahay wixii xaraanta iyagoo ku dhex jira ku dhintay ilaahay baa og maanta waxay ku sugan yihiin ilaahay baa og ilaahay baa la hortaagan yihiin marka waa yaan lagu mashquulin oo yaan la isku mashquulin oo qabyaaladu sayaysan noqonin awr lagu kacsado danta la leeyahay oo siyaasi dantu leeyahay awr uu ku kacsado iyo ul maartay ku dhaqaajistay ay noqonin wiil macnaha waxa way taayir lagu dhaqaaqsado dantii la leeyahay qabyaaladu ay noqonin qabyaaladu way soo martay hawiye waa is soo laayay daarood waa is soo laayay isaaq waa islaayay Soomaali isdaysa anigu ma arag hadday si waligeed inay Soomaali qabyaalada inta iska dhaafan Soomaalinimadooda ku ekaadaan ma ogaye wallahi se waligood dhamaanaysaas ay madaxa isaga garaacayaan cara ilaahay waxaan ahayna ay siyaadsaneen cara ilaahayna waxaan ahayna ma siyaadsanayaan wax u soo siyaaday bal arka marka dawlad idin shaqeynaysa dad dhalinyaro idin shaqeynaya oo ilaahay ma idin soo diray idin ku cayminaya alla idin soo diray alla yaan leedinka kala tuurin yahay idin dhahash anigu waxaan la hadlayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa qaasatan dhalinyarada meeshan ay ka faa'iidi kartaa yaan la hadlayaa oo faa'iidada ayagu ugu jirto ayagay faa'iido ugu jirtaa fadlan wal ihsaanig dhalinyaro dantiina raacda qabyaalada ka hara
Soomaali baatiin Kenya tag Soomaali baatay Ethiopia tag Soomaali meel ka shishana warkeeda badda Soomaali baatay war qabiilada adigu lahayn hadaad isku dhajiso de waxba ku tarmay waa mid aragtid laakiin qabiilka tahay waa Soomaali islaam baatay Soomaali baatay inta ku ekaaday dhalinyarada Soomaaliyeed inta arintuna idin dhaafin isku fakar waa kala fakar baad noqon kartaan waa sax isku kala dooq baad noqon kartaan waa sax kala doonis baad noqon kartaan waa sax laakiin wax qabiil la yiraahdo iyo waqtigeeda ka lumin wax qabiil la yiraahdo iyo idin ajarin iyo idin sirin waa been waa haan maran weeye waa qabiyo aan lagu qaraabto aan dhamaan weeye deadline male natiijo male fiican positive natiijo male cawaaqib xumo aakhira waa iyo adduunyo seeg iyo burbur iyo fool xumay leedahay iyo meel dar in la taagnaado iyo habaas in la lahaado iyo nafaqa xumo in loo diro iyo abaar in loo diro iyo on loo dhinto barwaaqada guriga ka buuxda ayaad ka baahan tihiin hoggaan fiican oo idin kaga faa'iideynaya maanta hesheen ويا إلهي إدين سو ساري وركا فايديستا هدين مالك اللي يدين وطنا دوا إدينك ودنيهن وحبا كما قبرنا أنه أمر إلهي يدو سعود وحبا كما قبرنا سببته وح أنت وح كليرا يا ماشان يالله وقفل با قرن كرو دولتي هي قلبا مالها سو قارسيسو لكن حتى الدولة داني والدولة أدون كرو إدين سو تشيدسي والدولة عن وحبا إذن كتب عنا إذن تبعيسا قفنا وقف أديك وحكو تبعيه قفنا واسقف أساقو تبعنا دولتي هore dad ayagu tabcanayay ahaayeen waxun waa ka qabanayeen dalka laakiin dad wax tabcanayay ahaayeen ayagu ku mashquulsan tabacooda iyo boobkooda laakiin dawladani waa dawlad idinka idin tabcaysa shilinkeeda mushaarkeeda xataa dib idin kugu celisay idinka idinku hawlan sida idin kaga badbaadin lahaayeen masiibada idinku habsatay 27 sano oo aad mar u soo noqon lahaydeen oo mar ay idin daba qaban lahaayeen bay ku mashquulsan yihiin isku cid ma aha isku qabiil ma ahan لكن waxay ku qabiilkooda runta habay macna way isweydiiyeen qabiilka runta wali walba dibaddu ka yimid dalkaas adduunka uu soo arkay oo horu maray oo maaragtay waxaan meeshan taaganahay aan shaqo ku lahayn oo ka tagay ka hortagay 100 sano ka hor war anaga maxay ina dhigay halkan marka qabyaalad oo way marka halkan guriga ka soo dhaqaaqno maxaa loo yaqaan hadda waa isfiirfiirinay waa isfiirfiirinaysa waxaad leedahay aniga hebel iyo heblaayo waa joognaa maxaa loo yaqaanaa Soomaali Afrika ka timid Soomaali wax ku dhaafsiinaya arkimaysid waxa marka hadii halka ku egtahay maxaa soo dhatiraysan oo mugdi u jibaaxaysan waxaad mugdi u jibaaxaysan oo soo dhatiraysan maxay tahay de malaha masiiba la idin la maagay masiibo iyo ciribgo iyo in sida maaragtay qudus oo kala farta la idin ku fiiqo oo qol la idin magacaabo yaa malaha la idin qoray malaha wallahi wax yar ma socdaan marka dhalinta Soomaaliyeed sida isku dhaama oo odayaasho baladan ah hurinaysaan iyo qabyaalada xulo aan ka dhamaano xanuunka quraan horta iska saara arbal quraan iska saara niyo Soomaaliya quraan iska saara qabyaalad quraan iska saara qofka istiraad kana ugu roon mar alla markaad istiraad kana roon balaaya ku soo duxanaysa hadda waxaan arkayaa wasiirka amniga iyo kii duqa magaalada iyo raali galin waliba bixinaya waa dhici kartaa inay qaldameen oo dhinac ku qaldameen oo ay ku qaldameen maaragtay xagga maaragtay procedure-ki loo marayay siyaasiga qabashadiisa iyo dhimashadii ka dhacday meesha oo loo baahnayn runtii waa sax khaladaad wuu dhici karaa dawladdu way khaldamaysaa waa bini aadan laakiin way khaldantay loo burburin mahayo loona baabi'in maayo sababtoo intay haysaa ka badan faa'iidaday keenaysaa ka badan intay keentay baa ka badan wax waa la isu miisaamaa dawladdii maxamed siyaad baa lagu riday qalad bay gashay oo maxay qalad u gashay askari mucaaraday oo maaragtay jajabinaya dalkii oo maaragtay kursigiisa ugu yimid qofka ayaa kursigiisa iskama celinayo waa iska keen celinaya fiyaas gardarada lama fiicna Soomaaliland ma u soo hartay Soomaaliland khaladka ayagu ay galeen ayay caruurtooda waxay ku talaaleen wax aan meel aan laga soo waaqsan intooda badan inkastoo in badan hadda ayaga kamid alxamdulillah ay soo fahmayaan haddaan qisayar idin la wadaago waxa jirtay aan shaqayn jiray hay'ad macnaha aan u shaqayn jiray baan case manager ka ahaa meesha dadka laga caawiyo hay'adaha samafalka baan u shaqayn jiray muddo 9 sano maalmaha kamid gabar baa isoo wacday isaaqa waxay tiri walaalay gabar walaashi kasankayga baa korontadii laga goosanaya 1500 baa lagu leeyahay ma caawin kartaa way ii soo dirtay subaxnimadii gabadhi way soo wacday wixii looga baahnaa oo documenti aan u diray way ii timid gabadhu waa isaaq war waqooyi markay ii timid gabadhi walaashi ahayd waqtigii macnaha wixii aan qaban karay runtii wuxuu wax process badan u baahan bay ahayd oo
xafiiskii markaa aan joogay lacagta aan bixin karo waa inaan intaana bixin ugu yaraan 2 resource oo kale aan isticmaalay ahayd oo 2 resource kale u abalay gareeyo oo aan ogaado labada resource waxa ay ka bixinayaan iyo haddaysa ka bixinay sababta ay ugu diidaan waa inaan waxa soo document gareeyay ahayd qolo walba saan isugu maroojinay maalinka qof kale wallahi inaan u shaqayn 8 saac gabadhaasi ku dhamaatay sababtoo asaan processkii wixii process qaadan lahaa baan speed ka sameeyay madaxdii baan la hadlayo baryay email ku baryay galabtii waxaan badbaadiyay karantidii 5tii laga goosan lahaa baan gabadha u badbaadiyay isku gurigeeda mugdiga ku noqon maalinkii markii aan dhamaysanay hawsha iyada aad u faraxsan bay waxay tirnaaya walaalo na maxaa loo lahaa bay tiri faqasta dad xun baa ku jira na walaal maxaa loo lahaa bay tiri faqas waa xunta ilaa dad fiican baa ku jira faqastu maxaa loo lahaa way xun yihiin ilaa dad fiican baa ku jira macnaheedu waa gabadha wixii lagu barbaariyay waa caqiidadii la cabsiyay weey dad dhan oo ilaahay abuurtay iyo dal dhan baa waxa looga dhigay bahal Soomaaliyeed oo walaalaheed oo ehelkeeda yaa bahal looga dhigay taala beena loo dhoodhoobay haddii maanta la yiraahdo la soo qufo maxay tahay Samaroon iyo dhulbaanta iyo dhulka dadka la daga intay ka laayeen taala ma 5 taala dhismaysa 5 haye maxay colaadi marka tagtaa midda kale mashaakilka waxay tahayba lama weydiinayo dadka dawladda jajabiyo oo dadka hadda wali hor taagan waa dadka dawladda siyaad bari u soo shaqeeyay waa askartii 77 ka soo dagaalantay waa dadka canshuurta dadweynaha ku soo bartay cid weydiinaysa war waxaad qaribtay maxaad ku bedeshay cid weydiinaysa arki maysid waana qabyaalad sababta aan loo weydiinayn iimaanka Soomaaliya Allah ku soo cesho cid weydiinaysa war maxaad noo qabatay waxaasan haysanay because macnaha waa qabyaaladu waa cudur aad u xun weeye cid weydiinaysa ma arkaysa dhalinyarada wax la xisaabtamaya ma arkaan markaas ay wali ku sii socdaan ummadii Soomaaliland bay kala jarjareen oo macnaha ay dagaal ku kala go'een oo colaad ku kala maqan yihiin isaaq bay colaad ku kala jareen oo maxay oo macnaha maanta nabad isu haynin waxaas waxay tahay marka hore cadaalad hadii laga fogaado macnaha cadaalad hadii laga fogaado waxsan rantiijo fiican ka soo bixi mayso tii hore ayay cadaalad xumo ku rideen taasi tusaale idin tahay qofka aqliga saliimka u ahna oo aqliga fikirka fiican leh way u sheegaysaa wuu fahmi karaa macnaha xaq darro qofka wax ku sameeyaa de macnaha xaq marna wax xaq ma keenayo moogta isagii baa xaq darro ku socda xaq darradii dawladda dhexe siyaad bar lagu burburiyay beentii lagu macnaha laga abuuray macnaha dulligii macnaha iyo beentii macnaha iyo buumbuuriskii iyo wax macnaha aan jirin iyo colaadii lagu abuuray dad dhan oo dhalinyaro iyo caruur ubax soo kacayay oo qaar badanina ay hadda fahmeen qaar badanina ay wali ku dhagan tahay Allah kasto kuwaasna Allah ka caafiyo ayaa dalkii horantiina hore lagu riday tana lagu hayaa tana waa lagu baa lagu hayaa tii bay taagan tahay marka tan dadku aqliga mala'an dawlad shaqaynaysa transparency adduunka u soo jeedisay shaqa abuur u sameynaysa mar dhow ay macnaha kulligood baaqmuundo iyo tahriib iyo balaayo dhan ay uga raysanayaan bay hadda heleen war cishta dawladda Soomaaliya dawladda cishta iimaanka Allah ku soo dejiyay dawladda cishta waa laydan habaaray siyaad baraha habaar maxamed siyaad baraha habaar idin kaga tagay Cabdiqaasim baa habaar idin kaga tagay madaxweyne kasta habaar buu idin kaga tagaa waa ul amr waxba laga aqbalaa habaarkii la idin kaga tagaa wali idin ku taagantiin marka ilaahay u laabta oo kitaabka ilaahay u laabta oo sunnada u laabta oo qabiilkuna waa islaam oo inta ka sokay Soomaali baateen oo waxa ka sokay iska daay waxa ka sokay waxba idin ma ahane iska daay waxa ka sokay waxba idin ma ahane marka ilaahay Soomaaliya iimaanka ku soo cesho dhalinyarada Soomaaliland waxaan leeyahay cuqdada faraha badan iyo meenta iyo taalada la idin dhisay kawaantooba taariikhda hoos u fiirsha qurbaha waa timaadeen in badan idin kamid ah cid aatiin waad u jeedaan cid kale inaan ahayaan la idin sheegin Soomaali baa tihiin gobolka waqooyiga ilaahay baa idinku abuuray waa sax Soomaalinimadiina ku ekaada Soomaali ha ka cararinina mugdi iyo qoqob iyo ciriiriyaan la idin galinin Soomaali waa baasan tahay doodkiina iyo dadkiina dawladiina wax la qaybsada intaas aan uga baxayaa kulligiina waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Soomaaliya iimaanka Allah ku soo cesho garashada saliimkana Allah ku soo cesho mar kalena walaashay caasho waxaan leeyahay Allah ku caafiyo qalbigaaga Allah ku caafiyo laftigaaga caloosha afkaa wax ka xaday Allah ku caafiyo khaladkaas ka dhacayna Allah ka masaabaxo marxuumkaasna ilaahay jannadii fardowsaha sareysa hageeyo ummadu hayeen maanta Soomaali way aragtaa beentii xukun jacayl waa jiray waa run xukun jacaylna wuxuu ula sinaa Afrikaan buu ula sinaa Carab buu ula sinaa
ummad badan baa la qabtay xogaaga yaroo reer galbeedka ayaan la arkin laakiin cilad kale ma lahayn nin dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu ahaa cadowgana ka ceshta wadani ah ilaalsada waxna u qabtay waxna u taray waxna ugu yaalay buu ahaa ka jajabise ummadii meel xun baad dhigteen qabaa'il baad ugu gabateen waxbana kama inaa faa'iidin isaaqoo hargeysa iyo burco xoogaa yar nabadaystay oo weliba odayaasha dee taana waxaa keenaysa 100 jeer horena waa sheegay qabiil kooban baa tihiin hal qabiil oo kooban qabiil waa isqaban karaa laakiin ummadda oo dhan baa Soomaaliya oo dhan baa lagu farday laakiin haddaad macnaha idinku laftigina dawlad keenaysaan gobolada waqooyi baad nabad ka keeni lahaydeen khaatimo iyo awdal baad Soomaalinimada macnaha Somalilanderka idin la qaadan lahaa oo macnaha halka idin la taagan baa la arki lahaa oo shacabkooda raali gelin lahaydeen oo waad si siman baad wax u qaban lahayd oo cadaalad ah markii horena qabyaalad baad wax ku jajabiseen si khalada ayaad maaragtay guryihiina dagaal markii ula soo gasheen idinkoon macnaha haddaad jabhad ahaydeen waxaa la rabaa inaad isqiimaysaan bay ahayd in macnaha jabhaddu ay eegto hadday dawladda la dagaalami kartana dee ay la dagaalanto hadday la dagaalami karin oo is arkaan inaysan la dagaalami karin oo meel ay futada la galaan waayeen inaysan guryahooda iyo dabka iyo maatada ku shidan bay ahayd ayagaa sababta lahaa guryahooda ayagaa dabka la soo galay guryaha daaqadaha ka dagaalamay shacabkoodina waa iska qaban waayeen marka halkaasay dhibaatadu ka timid dawladdu waa kuu jawaabaysaa of course waa kuu jawaabaysaa runta marka laga hadlo marka isku soo wada duub causation bay wax walba leeyahay causation abuur wax walba waxbay abuuran wax fiican kama dhalan halkaas laakiin waxba abuuray wixii abuurna ayagay ahaayeen asran bay ahayd wixii abuuray midda kalena ibraahim xaaji cigaal markaad qodbadiisa dhageysato Soomaali inuu kala gooyo asran mowqifkeedu ma ahayn Soomaali inay kala go'dana ma ahayn isaaq inuu meel isku qoqobana ma ahayn Soomaali baan xoreynayna bay ahayd haye waad xoreysay Soomaali baad maxaad xorriyadii ku keenteen way su'aasha la isweydiina waa taa oo la idin haysto dawlad baa ka jajabiseen Soomaali ah oo wadani ah oo aan qabyaalad aqoon oo qof ka xiga meel uusan jirin ayaanu haysanay waxaad tiraahdaa Soomaali baan rajiin baan ridaynaayo maartay waxaanu keenaynaa maxay too Soomaali baan xoreynayna ka xoreynayna rajiibka macnaha waxaanu keenay dimuqraadi baan u keenaynaa waaya waad socoteen iska daa dimuqraadi aad keentaane iska daaye waxaad kala qabteen oo maartay isaaq wad kala qabteen bal meel kale inta waxaad wadeen askari intaas u raadinay waana haysaan askartu sideeda aimkooda ma fahmaysaan idinku waa dad naxariis la'aan lagu tababaro waa dad si qalafsan u shaqeeya meeshu maagaan ku dhagan yihiin marka laakiin shacabku waa inay fahmaan waa inay ka tashtaan dhalinyaraduna waa inay cudurkaas ka daawowdaa xaqiiqdan u soo dhacaan waan iga intaas caaway intii jiran Allah caafiyo Soomaalina ilaahay qabyaalada ilaahay casaawe dabayl caafimaad ka mariyo rabbigay dabayl caafimaad qabyaalada ka mariyo ilaahay Soomaalinimadooda iyo waxyiinimadooda iyo wada jirkoodana Allah waafajiyo Allahna tuso